ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabeeyo oo ku dhamayna insha allah ilmihii lala cararayay oo laga wadayay wadamada Yurub iyo North America Soomaaliya la geenayay si dhaqankii iyo diintii iyo quraankii loo soo baro dhib haysta ayay waalidkiiba dhib isla haysta dhibkaas muxuu yahay aabba halkan ku qoran wuxuu leeyahay wiilkiigan Muqdisho u kaxeeyay kadibna markaan ka soo maqal dhowr bari baa madrasada laga soo ceyrshay haddaan warsadana waxa lagu yiri timisa kala dheer halkaana waxaan u kaxeeyay ku leeyahay quraanku iga diiday iyo anoo ku arkay inuu dhaqankii xoogaa isbabadal ku jiro dan iyo diin iyo naf iyo dhaqan wala doonay timaha ka dheer laga soo ceyrshay gaalimo kala cararaya hooyo kale waxay u tiri ilmaheeda halkaan ka waday Soomaaliya geysay si loo soo caynayay oo himba laga keenay dhaqan celiska diyaas barada dayus barada waxay tii toban magac oo aan aqoonin baa loo baxshay mahay hadday soo laabteen horta waxay dheen weliba ma socon anaga kaasa kana uu sheegay inuu soo su'aal Soomaaliya maxaa dhacay waxay dheen waa meesha dad waxa joogay dheheen oo ah cunsuriyiin midda koor baan u sameeyay waxa kale oo la iga sheekay mal weyd nin masaajid ka qodbeynay waa sheekh weyn inuu dhahay ilmaha Yurub iyo North America la keenayo waa soo raacal ma lahaba sheekhu maxaa dhacay luqadda ma yaqaanaan xayawaan ka cararayaan ariga ka baqaan marka wadaadka London la keen la asay naftiisa gacanta la qaban lahaa saadaradda luqadda la isku macaayo wala waxaan dhahnaa ilmaha Soomaalida ah Yurub iyo North America ka tagay af Soomaaliya way jabsadaan wala waxa lagu naynaasa af Soomaaliya kuma hadlaane laakiin lagu ma xanto carab waxa ma af Soomaali ilmi waxay soo laabteen iyagoo og in la cunsuriyay in rasiin lagu sameeyay in luqadooda laga sheegay in hooyo iyo ab meesha ay geeyeen oo ugu tagayeen dhaqan ku soo ceshaan ay abti iyo adeer iyo sheekh inta ugu tageen oo wax ka sheegay dhaqan celiska anu waxay dhaqan celiska loo baahan yahay oo maanta la weydiin la aniga waxa laga bilaabo dhaqan dadka Soomaaliya jooga dadka ilmaha la soo celisho dadka soo laabtaano dadka waa soo celinaynaay hay ku soo celinaa meesha dad waxa jooga aan u diyaarsanaynba in qof soo dhaweeyaan dadka banaankeed maxaa ka sheegtaa Soomaaliya dhexdeena waxa isku haynoonahay kan waa reehebel kan cidda wada dhalatay baa oday ilmihiisa midda ka ilma badan yahay ka cunsuriye badan yahay ولا كذا عروض بدل مرة مركا ودقن سو جيرين قبيالد وحلا ما دماطو waxay ku dhamasay wax u isku bedeshaanay basasho ka u diyaaranta ilaa ay gaarto isku bahmaniin marka qabyaalad baa waxay gashay ilmihii Yurub North America imaanay in lagu qabyaaladeeyay waa diaspora waa dhaqan celis arintaas waa arin xun diin ahaan iyo dabeecad ahaan iyo bini'aadam ahaan u xun Soomaalida dhexdeeda aan laga aqoon jirinin dadka Soomaaliya jooga arintaas waa inay wax weyn ka bedelaan oo dabeecad wax laga bedelo gaar ahaan madaarista iskuulada meelaha quraan lagu barto masaajida sheekha masaajidka ka khudbaynaya ilmaha Yurub iyo America keenaya aqli ma aha waa arin u baahan in ninkan aqoon dib u fiirsho مثقف بانا هاي أقويهم بانا هاي دين بان شاقنا يا ضد بان وعدين يا ilmo yar masaakiin waxaan ka sheegayaa wallahi ana caadi ahayn weeyaan ilmaha Yurub North America ku nool haday wadankii tageen koodii oo waxbay tareen kuwa kale khayr baa laga sugayaa oo yaa naftooda waxay u qabsanayaan waxa la og yahay ilmaha naf Soomaaliga waxay biyaha uga tan way yaqaanaan laakiin dadka Soomaaliya ka imaanaya hay'ada haweenaado haduu meelaha yimaado waxa loo kama yaqaano ciidana kuma caydo laguma cunsuriyeeyo laguma dhaleeceeyo waa la soo dhaweey inta lagu qabto xaleeda waa cusub yahay waa saasaan ka rabnaa ilmaha noo soo dhaweeyo oo ilmaha u dhimriya oo dhaqankii bara waxa la dhahaa qof kasta meesha ku dhasho wax ku yahay meesha ku koro wax ku yahay meesha wax ku barto wax ku yahay marka adii ma Soomaaliya inta la keeno eber bay ku yihiin adii kuwa xagga la geeyna sidoo kale to ilaa ay la qabsanayaan madaarista waxa loo furaa in dadka lagu hormariyo kuwii hore u joogay kuwa imaanaya intaba masaajida waxa loo tagaa in wacyi gelin iyo alla ka baq iyo aqli fiican iyo aqoon laga soo korarsado meeshii noocaas ah dadka inuu dacaydeeyo wax fiican
أنا أظن إنه هو أنتوبه مدارس في عنا بدل ما بوحدة وقلنا هاي وهذا مساعد كخطبة في عنا بوحدة لكن قال ضي سميان غلط وإن قعنت الله يغفر له شيء واحد المو بدل بعد تشوه لندن وراح يولي إنسان وصل على ها تيوصل عليه لفترة ثلاثة غريبة يعني ولا أصيغ معك هاي صاحبيت وشيء سكاد إنه لي صومالية وده كان سؤال إني لا يبغى ده كان غدر إننا وده سؤال وهي أو يصدقين ماشي لو عرّي على غصب عرّي الماء هو يكستال ويكون فكريسا أبغى يكون فكرية إنه معلم تقول سو هقول هنا وإنه هلا وضن في عام وعرّه أول نبض يلا على هذا الشيء لكن المية الديدة اللي ما صنع نجا هو النو ما مرة ماشي نعدو مركا الماء وعقول طالنا هو اللي هلو جيو فصح هتاو فصح كله هتاو هصوت على هذا يقول في عهل الدشيو سو وضن ويهرب لكن معه كهلا هذه السوق الود عايدين الطريق الود عايدين الدوسير الود عايدين معلمينتو إني إلقى رؤية شان ده كان المها بولجرين أي عمد عايدين أي تلاوة كقادان أيونا يسيتها أسود ويان مساجد يودي الكورية هاي مقايضها وين وصل وياه ده مقايض سوق عليه وعقيد سمز مطلع قصك اللي قصلي ولا يعب ها وعيد ميل ضم صواني تين ميو ميل ضم صواني قريب ميو سمز مطلع ما بتوسي على سمز ميال ده ديفرنت وهو مع واحد مركا حتى هو يوربي نورث أمريكا كله ولي المها إيه اللغة بران دياره معه أيام يسكو برتمرك قاركود هذا يكون عايد يعني الصومالي أنا يا مركا إنجليز خلطة يخوي أبا خلطة يا إنجليز خلطة إنه المهم هو قصلان أنا يا مها وصلنا ما الصومالي غلطان ولو أنا يا معلمينا والد كان معلم كبار وحنا هنا هو يكستالي يا أبا كستالي كوفش المي إني المهم الصومالي بران وعن كوفش من تربية أساسية سيا درجة المها اللغة ضبط مال في عنقي dadka awgeeyay sida Soomaaliga kala hadaltay ma iga fiirina hore hadii kala doo ilmaha bari wax u doon ma socono hadii ka diidana ma qasba taaniga si aad raadid